السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحرا يوتيوب جانل كيغا افتنا فشيال وايدن سلامي ميل كستي دنيا دعليد كجوكتو حايدن ليا سودة دوادا فضلا جانل كاداكو عصب تهي سسكراب نصار هورا هدانو اللي جوكت لايك إشاركي كومنتي انت بوانو مهم أصحابتي قيمها اي قايا روح عايدن ليا سودة وادا ومركا لأي ولاشين افتين او ايدن لأسكسو نقود وناكسن halkaan naga daawanaysaana waa iftiin official aniguna waa iftiin soo dhawaada idin leh asxaabtidii sharafta leh channelkan waxaan si naxariis lagaaga codsanayaa inaad subscribe gareyso noo like gareyso fiidiyoyada commentiga ducada iyo dhiirigelinta isugu jira noo soo qoro waxay fikrad ah qabtiin nala soo wadaaga commentiga noogu reeba insha Allah taala waan in la soo jaahil bixin doona waan ka soo jaahil bixin doona insha Allah mar qarab Soomaaliga dhacaysiinayo waan ka soo jaahil bixin doona insha Allah taala waxaad la soo dhawaada markasta waxaan jeclahay waxyaabaha caalamka ka dhacaya maxaa la dhahaayay intii aan la socontii la socod wayba la socota intaan la socon inaan halkan uga soo gudbiyo dadka dhibaataysan maxaa la dhahaayay dadka nimcaysan intaba update adigu update intaqaanido update ina idin ka dhiga jeclahay asxaabteyda ku xiran channelkayga soo dhawaada idin leeyahay waxaan oo wada maanta فيديو عصب إن شاء الله تعالى فيديو اسمحوك وسابسين هاي مالمها مريكان كدبكيسو وصوبته المها لقاذناي والدين تلعبورناي نقص كالوغو دجيناي وحيابها صدن ايا صوبتين سالة سعوتين نهارو waxaan kugu soo deeyno hooy cunug si leef looga qaadanayo hadana waxaan kale idin soo gudbiyay hooyo kale oo ayadan laga qaatay cunugeedii 6 bilood ka hor laga qaatay cabanaysa ka calaacalayso ayaa idin soo gudbiyay hadana maanta maxaa wadnaa nin sheekh ah oo caalim ah oo lagu xiray hadana xalay wadanka Mareykanka dabacasar ayaa leef soo galiyay maalmaha dabacasar waxa u maleysaa ummadda Soomaaliyeed inuu u taagan yahay oo maxaa la dhahaayay wax kasta oo Mareykanka dhaco uu noo soo gudbinayo uu ku maasan yahay walaalkeen garab istaag ummadda Soomaaliyeed oo garab taagan yahay gabadhaas sheekhaas oo la xiray wadaadkaas la xiray waxa xirtay gabadhiisa oo dacweysay waa gabar qaangaarka sanka u saaran hadii sabab qaangaarin 14 jir sida la sheegay ayadina la qaatay oo gaaladii ay wateen aabihiina la xiray marka yaanbal in horta in kaga hor dhicin wixii faahfaahin wixii hadal ama fikrad aan haayo insha Allah gadaal ayaan kaga soo gudbin doonaa laakiin horta marka hore ila dhageysta dabacasar iyo codkiisa insha Allah taala iyo fiidiyooga ka soo diyaariyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارتا شرفت لي ملك استوى الدنيا يا عالم كبعد كتوكتان وحال حيري شيخ فيصل كدي مركي أي قبدي سؤال دعويسي إنا لله وإنا إليه راجعون قبدين وحا قادتي قال ذا أيا قادتي أو كحيستي ودات كينا والله حيري إنا لله وإنا إليه راجعون halka kani waa xaafada ay degan tahay Soomaalida ugu badan magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio sadu jeedaan guri walba iyo luqluq walba iyo xaafad walba waxa ka soo jeeda gabdho Soomaaliyeed oo muxajabaad ah ama maartay xaafadan oo idil waxa degan shacab weynaha ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan wax xunahay caruurta hooyadood waa ay dhimatay aabihiina waa la xiray kadib markii ay gabadhii uu dhalay ay dacweysay gabadhiina gaalada ayaa qaadatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun أمريكا يعرقالو يقول صورة ماهن أمريكا يعرقالو يقول صورة ماهن أمريكا يعرقالو يقول صورة ماهن إنا لله وإنا إليه راجعون يا من في عمبوها عروتها سيهستي قبل واتي دمتي حاسح يا ها أصلا عنتلو عن جلدو كرنجي يا يا ولد يا أبي هو يبصقوها يا إنا لله وإنا إليه راجعون أبي هو يبصقوها صح الله صبح الصوماليها صبح هاي صوت مادة صح كل تبغى إنه يمادة صح وإنا نعاون السعيد مسكين فيصل مع الشيخ فيصل ها صح وإنا نعاون وإنا نقرب الساق الصومالية يسوي صبح صح مالا تشبي ولا تشبي ها مالا تشبي ولا تشبي ها شبت على الرفت يا قبل دعوة سمية قبل
marka hooyadiina waa dhimatay aabihiina waa la xiray asagana aabihi hooyo u ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi ka warrama qurbaha marka waa gartay ilmo la isku haystay ilmo la qaato Mareykan baa noogu horeysay waa gartay xor manihin ilmaha nagi baa la ugu haystaa xor manihin sax Soomaali hay iskarabsato Soomaali hay is-aasto Soomaali hay is-caawiso gacmaha la isqabsado dalkeena Allah nagu celiyo dalkeena dadka joog gacmaha hay isqabsadaan waa u jeedaan waxa maanta yaala ilmaha naga lagu ma qabsan jirin dhibaatada taala waad u jeedaan ilaa Yurub ilaa North America waa inaynu istaagnaa community hadaan nahay aan iska celinaa cadowga dhaboobahaya waa gartay saara tagir qeyrad caalamkii dhan bad qeyra ku beertay gabdhaha Soomaaliyeed maxaa leedin walaalayaal idinku maxaa leedin walaalayaal halka idinka jooga maxaa ها أبا في عصامين يا هو يا أبا سيو هاي ما عرورت ما غنيين تضبط يا هاي أصيا أبي هو يوها واقرت أنت هذا وكرين شري ودرك ودرك شري مرخاتي بنكاي أنا حتى صوبغضي يا واقرت يا هبين يمالين بس وشغلين شري يا واو مركب ما واحد كان حافظ لا إله إلا الله محمد رسول الله الماء الرجاء أو هيست الشيخ فيصل والشيخ مسكين اسكاها gaalada ilmaha waxay u akhrinayaan xilliga iskuulada ay joogaan waxay u akhrinayaan waxay leeyihiin hadii waalidku idin taabto xurriya leedihiin xuquuqa leedihiin waalidku hadoo idin taabto waalidku sidii na garaaci jira ma aha na tarbiyeyn jira ma aha garay gardaraba nagu garaaci jiro nagu canaanin jira ma aha goorma waalidku qiimaha beelay oo qaayaha beelay oo maxaa la dhahay xabsiyada la dhiga la bilaabay subhanallah ilaahu waxa naga soo goysay waxa nuusan nooga dhig oo wax khayr qaba nooga dhig maxaad u malaysaa waxaad si arkaysaa waalidka inay daciifayaan qurbuhu dhibayaala Soomaaliya qurbaha dhibayaala wax loogu ordaa meesha ma taalo hadaad cunugaada tarbiyeysan karin diinta islaamka aad baran karin haduu qalad gala aadani karin wariya maxaa qaladkan u gashay oo ku xiraayaba oo xabsi ku geenay maxaaba yaala adduunkaneeto maxaaba yaala qurbaha waxa loo orda ma aha ilaahu wadankeena nabad nooga dhig gabadhaas waxa 14 jir ahayd aabaheed ay dacweysay laga yaabay inuu ku qeyliyay waa aabe ama ay qalad gashay ama wax ay sameysay laakiin lama sheegin wax uu ku sameeyay asaga way xirtay dharka u dhaqi jiray leeri cuntada u karin jiray hooyo iyo aabo u ahaa maxaa la dhahayay asaga korinaay waa 7 ciyaala hadda gaalada yaa la tagtay asaga waa la jeebayay leeri shiiqi inta la jeebay xabsiga dhakab lagu sii Mareykanku ku xiray Soomaaliya istaaga meel kasta joogtiin u istaaga dhibka iyo isqa qabsiga iyo balaayada ah ku jirtiin inta ku jirtiin gaala idinka faa'iideysana inta qurbaha loo sii ordaa oo loo tahriiba oo la leeyahay Mareykan maxaa kaaga horeey wadankaaga hooyo adigoo nabadeysata dakhli gashata ilmahaada ku haysata tarbiyeysata meel aan lagaaga qaadan wadan ma islaam oo laga qaadanayna dhooban aad maxaa wadan cunugaadi lagugu gumeysanayo adiga lagugu soo jeexjeexa ee lagugu gumeysanayo maxaa ku wadaayaba maxaaba ku wada awalba waa aadey ka soo laabta wadankiina imaada dhulka islaamka idin baahan taga meelaha linka qaadeen oo nabad oo amniyaha jira oo ilmahaada ku canaansay soo ku garaacay soo dugsiga geesanays alxamdulillah nimcan ku jirna ilaahay hanoo siyaadiyo inta dhibkaystan ilaahay ha ka bixiyaan leena fiidiyoogii idin ku dheereen asxaabteeda hadii aad channelku cusub tahay subscribe noo saar hore hadaan oo la joogto leeg waa noo muhiim iyo share iyo commentiga waxa idin leeyahay khayr badan aad rajeena fiidiyooga waxa inta ku kulmi doon wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh bye bye